Shirkadda Mapsa Group Agency Limited oo ah shirkad iibisa dhulalka magaalada Nairobi iyo qaybo ka mid ah ismaamulada dalka ayaa maanta deeq dhan 100 xabo oo Mareykanka ah guddoonsiisay xarunta Agoonta Mandera Islamic Center MIC kadib markii codsi ugu yimid mas'uuliyiinta xaruntan 14kii bishii Febraayo ee sanadkan 2026. Shirkadda ayaana maanta oo loo dabaaldegay Ciidul Fitriga guddoonsiisay Mareykanka waxaana guddoomiyay maamulaha xaruntan Sheikh Xasan. waxaan joognaa waqti bacd al-casr ah maalin jumco ah maalin ciid ah bisha islaamka ay tahay taariikh 1 bisha tobnaad ama shawaal loo yaqaano sanadka 1447 oo waafaqsan taariikh maartay 20 bisha saddexaad 2026 waxaa nala jooga noo imaaday wafdi ka socda Mapsa Group Agency Limited dhalinyaro ka mid ayaa inoo imaaday hadafka iyo danta ugu weyn oo u imaadeen waxay ahayd ballanqaad hore ay u ballanqaadeen inay fuliyaan ballanqaadkaas oo ah in marakaneecooyin amaba shandarwooyin ay ilmaha agoonta u keenaan waa kuwaas waad u jeedaan ilmaha iyagoo gacanta ku haysto ayadoo maartay loorkooda ku jirtana waa taasa waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin dadka walaalaha ah maalintii kulli aad imaanaysa animaana joogin akh Suleymaan Bukhari maalinta animaana joogin walaalkay abtiga Anis iyo maartay culimada kale ayaa joogtay aad baad u mahadsantihiin mar hore iyo mar dambaba waxaan idin rajaynayaa insha Allah taala adduuni aakhiraba guul inaad heshaan hadafka iyo maartay ayaa laga leeyahay Mapsa Group inay gaaraan ilaah baan ugu barinaynaa insha Allah taala xoolo badan oo sadaqaystaan oo muslimiinta ay ku deeqaan dadka baahan ay ku deeqaan inuu ilaahay soo siiyaan rajaynayna groupkana ilaahay uu ka yeelo maartay hay'ad weyn ilaahay uu ka dhigo insha Allah taala wax walba bilow bay leeyihiin khayr baad ku bilowdeen sidaad maartay u caawisaan masaakiinta iyo agoomaha aad baad ugu mahadsantihiin shaqadii qofka muslimka inuu qabto la rabay baad haysaan الله سبحانه وتعالى هايدين بركيو قف والبا مرادكيس الله سهله nin walbo ka shaqeynaa arintan qalqaladan qayb kulaha ama ra'yi kulaha ama xoolo kulaha Allah barakeeyo cidii ma artay xoolahan ku soo tabarracay Allah barakeeyo kii maskaxda keenay aqliga keenay Allah barakeeyo kii ma artay facilitation u soo suubiye Allah barakeeyo ciise waxa wakiil ka yahay shirkadda Mapsa oo deeqdan maanta bixisay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillaah wassalatu wassalamu ala rasuulillah maanta maalin wanaagsan maalin weyn oo maalin ciid ah waxaan ku suganahay markaska MIC oo Mandera Islamic Center Orphanage ma sha Allah bishii hore taariikh 14 aan meeshan imaanay waxa imaaday xubno ka tirsan Mapsa Group Agency Limited oo hogaaminaya walaalkeeni Suleymaan Bukhari iyo qolofadiisa ilmo bay qadan leeyeen ma sha Allah wuxuu ilaahay ugu soo qaaday qalamo iyo buugtay siiyeen maalintaas ay waxay naga codsadeen in ilmaha u keena ay rabaan ay ku codsadeen in ilmaha u keenaan marakaneecadaas ayaa maanta keenay 100 xabo anoo ku hadlaya magaca shirkadda 100 xabo ayaa waxaan ku wareejinay maamulaha Sheikh Xasan ayaana laga wareegay ma sha Allah balantiyan oofinay marka waxaan leenahay culimadan way noo duceen intay noo duceen karaan balantana waan oofinay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. si kastaba haatee 14kii bishii Febraayo ayay markii shirkadda Mapsa Group Agency Limited ay qada sharaf u sameeyeen ardayda agoomada ee halkan ku jira ayagoo si lamida guddoonsiiyay buugaaga Ibrahim Nuur Cabdiraxmaan warbaahinta Daawa countiga Mandera.